magaalada Dhuusamareeb waa caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waxaana lagu tiriyaa inay safafka hore uga jirto magaalooyinka ugu xarumaha badan Soomaaliya iyadoo la sheego inay xarumaheedu ku dhow yihiin ilaa 63 xarumood qaarkood waa kuwa shaqeeya halka kuwa kalena ay burbursan yihiin xarumaha la tilmaami karo waxa kamid ah xarunta 21aad oo talis muhiim u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waayo jooguna inoo sheegay xilligii dowladda Maxamed Siyaad barre inay talis u ahayd buulo barde ilaa Garowe cadceed Sheekhdon Diri waa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka waa waayo joog xog badan ka haysta taariikhda ay soo martay magaalada Dhuusamareeb waxaana ka qisoonayaa xarumaha burbursan iyo kuwa hadda shaqeeya waayo joog cadceed Sheekhdon Diri waxa uu tilmaamayaa inay jiraan xarumo badan oo saameyn ku leh adeegyada bulshada oo burbursan si loo adeego bulshada waxa muhiim ah in la helo xarumo lagu shaqeeyo haddaba si bulshadu u noqdaan kuwa hela adeegyada ay u baahan yihiin baaq ceenkee ah ayuu jeedinayaa waayo joog jiritaanka hadda bacdal kacdoon xilligii dheeraa hadda waxa dayac jiran 323 inta kalena wali waa la yacan tahay haddii ay dawladda shana waa dayac tirmaysaa haddii shacabkeedu u kacana waa dayac tirmaysaa inkasta oo aan hubo in lagu dhisay iskaa wax u qabso haddana dadkii nool yihiin weli Soomaalidii yihiin reer Galguduud yihiin reer Dhuusamareeb yihiin reer Galmudug isu bedelayaan waa ku dhisan karaan iskaa wax u qabso meelaha ugu waaweyn sida isbartiibada kubadda cagta iyo tan gacantaba waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso maalmo iyadoo lagu xukumay in maalmahaas aan ku boorsiina iyadoo lagu qaban doono ciyaaraha gobolada saddexda ee Hiiraan Mudug iyo Galguduud ugu adeegi jiray dadka oo hadda burbursan xaruntii daaqa qaranka walban waxa ka mid ah howlihii guud iyo guriyeynta waxa ka mid ah qaybta 21aad ee gurigii saraakiisha waxa ka mid ah dugsiga sare ee Galguduud oo qaada arday gaaraysa ilaa 2000 oo asaguna wali la yacan waxa maal badan baa wali la yacan laakiin meelihii muhiimka ahaa oo sidii wakaaladda ganacsiga ummadda inji oo hadda xarunta ahlu sunna ah waa dayac tiran tahay isbitaalka Xanaano waa laba meelood oo isu furan jabhadii Soomaali galbeed iyo xaruntii golayaasha ummadda waxaa xigta xaruntii nabad sugidda waxaa xigta xaruntii madbacadda qaranka tii gaadiidka oo hadda xogo gacan loo qaaday laakiin aan dayac tirnayn si dhab ah waa xigta tan sii xigta oo iyaduna isla xanaanada xoolaha iyo daaq labay ahaayeen xanaanada xoolaha waa meesha mudulada leh haddana iskuulka bulshada loogu dhigo dhinaca kale haddaad fiirisid gobolkii waa dayac tiran yahay xaruntii gobolka waa dayac tiran yahay gurigii taliyaha qaybta bool waa dayac tiran tahay shir kale xaruntii saraakiisha waa dayac tiran tahay hadda waxaa laga wadaa dayactir guud ADC ama miraha beeraha cadceed Sheekhdon oo sida aan u helaan xarumaha dawladda Soomaaliya ay lahayd haddana danta guud iyo dadka lagu adeegi jiray baaq noocay jeedinaysaa 323 aan iri waa u kala bari lahaa 323 markii la isku dhufto aljabri soo baxaysa xisaab in waxaan u dhigi lahaa dawladda inna waxaan u dhigi lahaa muwaadiniinta reer Galmudug oo Galguduud ay dhashay magaala madaxdaani xarumaha si sahlan lagu dayac tiri karaa haddii loo kaco haddii dhinaca kale looga kaco oo la yiraahdo ku dayac tiro dalkaaga $1 oo lagu dayac tiri karaa bangiga kale hadda waa dayac tiran yahay wakaaladii batroolka hadda waa dayac tiran tahay yani shacabkuna waxbay dayac tiran karaan dawladana ayadaaba looga fadhiyaa maadaama ay wasaarad iyo wakaalad iyo ciidan 21aad ku cufnaayeen halkan in ay dayac tiraan oo u qoondeeyaan dayactir guud oo loo heli karo xarumahaas inta xamar leeyahay oo qaranku leeyahay la halkaan cadceed Sheekhdon hadda ma la dhihi karaa in dawladda Soomaaliya inkastoo hadda dawladda Galmudug hadda kulay dhisma ayaa ku socda xarumaha danta guud lagu adeegi jiray ma jiraan kuwa ay dadku dhiseen sida shirkadaha oo aad aragtay oo maalin dhow lagu qabanayo shirkii dib u heshiisiinta sida wakaaladda ganacsiga ummadda inji oo aad aragtay ADC oo hadda lagu wado oo shalay ama daraad laga bilaabay xaruntii weyneed ee dib u heshiisiinta iyo dastuurka xarumuhu waa dayac tiran yihiin ahlu sunna ilaahay mahdo ka gaadho ayakaa dayac tiray nabad sugidda ayakaa dayac tiray daaqa qaranka ayakaa dayac tiray xanaanada xoolaha
ayakaa dayactiray oo ha lagu qaato miisaaniyad ama qandaraasyo laakiin intaas ayakaa u soo joogay ilaahay maadaa ka gaadha galmudugna waa isugu soo noqotay inta dambena waxaan ka rajaynaynaa in galmudug wasaaraddeeda wakaaladeeda iyo hay-adaheedu dayactirtaan haddii xataa dowladdu gaagaabido xarumahani burbursan oo ku yaal magaalada Dhuusamareeb ayaa la aaminsan yahay inay door muhiim ah ka ciyaari doonaan adeegyada bulshada waa haddii ay helaan dayactir ku filan. Fartuun Maxamuud Axmed, Somali Cable TV, Dhuusamareeb.